waxaana wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka iyo wararkii ugu dambeeyay caalamka. Qodobada xiisaha badan ee xilligan barnaamijkan idinkugu soo gudbi doona waxaa qayb ka noqon doona halkii ayuu ku dambeeyay khilaafka u dhexeeya maamulka Galmudug iyo dowladda dhexe ee federaalka ayaan barnaamijkan kaga hadli doonaa. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Cali Dahar Ciid ayaa soo dhaweeyay bilaabista diiwaangelinta iyo markaasi qaraar bilaabidda Galmudug xilli dhawaan la qorsheynayo in maamulkaasi ay ka dhacdo doorashada qof iyo codka ee wadda dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya. Waxaan halkan ku bogaadinayaa kuna soo dhaweynayaa horumarka muhiimka ah ee laga gaaray geedi socodka dimuqraadiga ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo Galmudug, ayuu yiri wasiirka Ciraade oo markaasi madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug Cali Dahar Ciid oo war-saxaafadeed soo saaray maanta ku sheegay. Tallaabadan ayuu madaxweyne ku-xigeenku wuxuu ku sheegay in markaasi markhaati ka yihiin rabitaanka shacabka iyo dadaalka madaxda ku aadan xoojinta midnimada. Tani waa tallaabo geesinimo leh oo loo qaaday dhanka nidaamka qof iyo codka, taasi oo muwaadin kasta siinaysa fursad uu ku markaasi go'aansado masiirka hogaamineed, ayuu yiri madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug. Arrintan ayaa imaanaysa xilli khilaafka siyaasadeed u dhexeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo si weyn looga dareemay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa walaac xooggan ka qabta in madaxweyne Qoorqoor uu carqaladeeyo doorashooyinka golaha deegaanka iyo tan baarlamaanka ee lagu wado inay maamulka Galmudug ka qabsoonto 20 Juun iyo 2 Julaay, iyadoo doorashada hoggaanka Galmudug markaasi lagu mudeeyay in la qabto 9 Julaay. Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor madaxweynaha maamulkaasi ayaa doonaya inuu mar labaad xafiiska uu ku soo laabto, halka dowladda federaalka ee ujeedadaasi ay ku wado markaasi shakhsiyaad kale, waana halka uu ismarin waagu ka taagan yahay. Dad badan oo ku nool magaalada Dhuusamareeb ayaa ku baaqay in khilaafka siyaasadeed ee xiisadda uu abuuri karo in magaaladaasi isku beddesho gacan ka hadal. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha maamulkaasi Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa dowladda hogaamiye Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ku guuleystay inta badan saraakiisha booliska iyo nabad sugidda Galmudug inay ka baxaan garabka Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, waxayna filla Soomaaliya caqabada ka hortaagan u aragtaa